بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ونكسن داوديال كوسو دوادا برامجka diirada aragti cusub oo si toos ah xilligan idinkaga imaanayo TV-ga aragti cusub xaruntiisa magaalada Oslo ee caasimada wadanka Norway. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah nindadiisa loo qiyaasay sodomeeyo ayaa maanta weerar loo adeegsaday midi ka geystay xafiiska NAF ee magaalada Bergen ee caasimada labaad ee wadanka Norway. maxkamadda caalamiga ee adduunka ayaa maanta ku dhawaaqday waqtiga rasmiga ah ee la soo gabagabeynayo dacwadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. wasaaradda caafimaadka oo sharci adag ka soo saartay faafidda xanuunka COVID-19 oo maalmihii u dambeeyay si aad ah ugu faafay dalka. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. ku soo dhawaada mar kale barnaamijka diirada aragti cusub. barnaamijka waxaa idin soo saaray wariye Cabdikariin Xuseen Guutaale, anigoo daacad ah ayaa idin xiriirinayo. dhanka farsamada iyo qaabayntana waxaa ka hagayo farsamo yaqaan Maye Moge. aan ku bilownay nin da'diisa lagu sheegay sodomeeyo ayaa maanta weerar loo adeegsaday midi ka geystay xafiiska NAF ee magaalada Bergen ee caasimada labaad ee wadanka Norway. magaalada Bergen ee caasimada labaad ee wadanka Norway waxaa si toos ah ugu jiro qadka teleefanka wakiil wareedka TV-ga aragti cusub wariye Bile Maxamed Cabdi Bile Bastey. Bile kusoo dhawow marka hore ee aragti cusub TV. salaad waan ku dhawahay warbaahinta aragti cusub. Bile waxaad marka hore faahfaahin naga siisaa dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Bergen ee caasimada labaad ee wadanka Norway. salaado falkan mideynta waxa uu dhacay saacii 4:02 daqiiqo markii ay ciidamada boolisku ay heleen warbixinta toorinta xafiiska NAF Polstad oo ku yaala xaafada Denmark ee bartamaha magaalada Bergen. waa gartay Bile ninka falka fuliyay ilaa hadda dad badan oo Soomaalida qayb ka tahay ayaa hadal hayay. booliska ma sheegeen ninka falka geystay cidowya. salaado markii falkan uu dhacay ciidamada boolisku iyo kuwa dardamiska iyo ambalaasada waxay goobta ku soo gaareen si degdeg ah waxaana goobta laga qaaday laba haween ah oo midi u geeriyootay dhaawacii soo gaaray halka midda kale la sheegay xaaladeeda caafimaad inay ka soo reynayso. sidoo kale waxay ciidamada booliska ay gacanta ku dhigeen oo ilaa hadda ay baaris ku hayaan ninka falka dambiga geystay oo da'diisa lagu qiyaasay 30 jir. waxa uuna ahaa waxaana falkan uu geystay xilli la sheegay inuu kulan lahaa contact person ama qofka wakiilka uga ah hay-adda caawinta ee ceyrta. booliska markii uu meesha soo gaaray xafiiska ceyrta oo ninkaasi falka ka geystay dadkii kale oo xafiis ku sugnaa xagee la geeyay marka laga tago ruuxii dhintay oo aad sheegtay iyo qofkii dhaawacayo meesha laga qaaday. falkay salaad markuu goobta uu ka dhacay runtii xaaladda way isbedeshay waxayna isku bedeshay xaalad murugo iyo cabsi leh. shaqaalaha waxaa soo wajahay qalqal iyo cabsi fara badan. sida wararka aan ku maqlay markii ciidamada goobta ay soo gaareen waxaa goobta laga wada shaqaalihii kale ee ku sugnaa gudaha xarunta uu falku ka dhacay waxaana la geeyay hotel magaalada bartankeeda ku yaala halkaas oo amaankooda lagu xaqiijinayo. waa gartay dhacdadaasi ka dhacday maadaama la hadal hayo in ruuxaasi uu ahay dadka soo galootiga ah Soomaalida oo kamid ah dadka soo galootiga ay ku nool magaalada qaab noocee ayuu u saameeyay maxaa dareenteen? Soomaalidu si aad ayuu u saameeyay salaad markii arrintan ay dhacday waxaa laftooda soo wajahay cabsi dadku waxay si aad uga hadalhayeen qofka falka uu geystay
halka uu asal ahaan kasoo jeedo, inuu norweji yahay, inuu ajaanib yahay. run ahaantii waxaa jiray hadallo badan oo dadka isla dhex marayeen. dadka Soomaaliyeed waxay kula xiriirayeen inta badan telefoonada, xitaa qaarkood way ila soo xiriirayeen si ay wax iga weydiiyaan qofka falka geystay. laakiin ciidamada boolisku waxa ay sheegeen qofka dhibaatada u geystay inuu yahay qof soo galooti ah oo wadankan soo galay 2011, dhalashada dalka Norway qaatay 2019. laakiin ninkan markii aan xuraansaday magaalada aan meelo ka badan la xiriiray, waxaa warbaahinta aragti cusub ay xaqiijisay inuusan ahayn qof Soomaali ah qofka falka geystay, laakiin uu yahay ajnabi aan weli la sheegin asal ahaan halka uu kasoo jeedo. waa gartay bile falkaani ama dhacdadaani maxaa sabab u ah ayaa laleeyahay? ilaa hadda boolisku warbixin rasmi ah kama aysan soo saarin sababta rasmiga ah ee falkaani geysatay. warar oo dadka isla dhex marayaan ayaa iska jira oo ay sheegayo qaarkood inay la xiriirtay dhinaca mataqaana caawinta kaalmeynta qofkaas, maadaama xilliga falka uu geysanayo iyo qofka dhibaatada u geystaba ay ahayd haweeney asiga u ahayd contact person amba qofka qaabilsan dhinaca hay-adda kaalmeynta ee ceyrta. waa gartay bile dad badan ama arrintaasi ka hadlay ama warbaahinta qaar ayaa sheegayo in ninkaasi madaxa looga jiro oo ahaa nin xanuunsan. taasi maxaad kala socotaa? sababtaas ma xaqiijin karo. ilaa hadda tabaarista way socotaa. ma hordici karno, mana ogaan karno ninkan inuu masiixiin xanuunsanaa, inuu caafimaad qabay. sababta rasmiga ah ay ku kaliftay inuu falkan geysto. ilaa hadda ciidamada boolisku waxay wadaan baaritaan. baaristana waa ay socotaa. waxay faahfaahin ana dib ayaan ka sheegi doonaa oo xaaladda ninkan sababaha ku kalifay iyo badqabkiisaba. waa gartay bile dhacdadan ka dhacday magaalada Bergen maanta ma midii ugu horreysay ka dhacday mase dhacdooyin kale oo ka dhacay magaaladaas ayaa jiro oo lala xiriirinayo dadka soo galootiga oo ay Soomaalida qayb ka yihiin? runtii salaado magaalada Bergen waa caasimada labaad ee dalka Norway. waxaa ku nool ajaanib fara badan. way jiraan dhacdooyin toorey dad lagu dilay, laakiin waa markii ugu horreysay xafiis dowladeed ama hay-ad intaan la eg qof ajaaniba intuu galo oo dhibaato intaan la eg uu ka geysto. laakiin dhacdooyin oo dilal iyo waxyaaba noocaas way ka dhici jireen oo bulshada dhexdeeda ah, laakiin waa markii ugu horreysay xarun dowladeed uu ka dhaco inta aan ka warqabo. waa gartay bile dadka Soomaaliyeed ku daawanayo maxaad u xaqiijinaysaa maadaama warar iskhilaafsan ay kasoo baxayeen ninka weerarka geystay inuu asal ahaan Soomaali kasoo jeedo ama dadka waa la sheegay inuu soo galooti yahay, laakiin dad badan ayaa Soomaali dulbaba soo carabaabay. maxaad u xaqiijinaysaa? sabab inkastoo boolisku weli kiiskan oo gacanta ku hayo si rasmi ahna uusan u sheegin qofkan asal ahaan halka uu kasoo jeedo oo aan ka ahayn xilliga wadanka uu soo galay inuu yahay qof citizen ah oo dalkan dhalashada Norway qaatay. laakiin markii warbaahinta aragti cusub ay baaris iyo xiriiro badan aan la sameeyay magaalada, maadaama dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada ay intooda badan isugu yaqaaniin, aan la xiriiray dadka waxgaradka ah, dadka xogaha aan ka helay iyo waxay ii sheegeen ama aan xaqiijinaya in qofka falka geysta uusan Soomaali ahayn, laakiin aan xaqiijin karin halka uu kasoo jeedo. waa gartay aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahay weriye bile maxamed cabdi bile baaste oo ah wakiil wareedka TV-ga aragtida cusub ee magaalada Bergen oo ah caasimada labaad ee wadanka Norway, oo iga warbixinayay dhacdo maanta ka dhacday magaaladaasi oo la sheegay in uu geystay ruux ka mid ah dadka soo galootiga ah, kaasi oo weerar midya u adeegsaday xafiiska ceyrta ama kaalmeynta ee wadanka Norway. qof qaabilsaneed asaga iyo qof kale oo dhaawac loo geystay sida warbaahinta ay sheegeen. aad baa u mahadsan tahay bile. waa tahay daawadayaal, weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni diiradda aragti cusub oo aan ku qaadadhigaynay waxyaabihii cusub 24 saac ee ugu dambeeyay. waxaan iminkana u boqolinaa dhanka iyo Soomaaliya. maxkamadda caalamiga ee ICJ oo maanta ku dhawaaqday waqtiga rasmiga ah
ee lasoo gabagabeynayo dacwadda murunka badda Soomaaliya iyo Kenya. waxaa qadka magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiro wariye Ilyas Daawud Xasan Sudaysi oo kamid ah wariyaasha aragti cusub ee halkaasi uga soo warrabo. Ilyas, haddii aan maqasho kusoo dhawow marka hore warbaahinta aragti cusub. aad baad umahadsan tahay Salaad Maxamuud Saadac. bal Ilyas, waxaad faahfaahin naga siisaa warka maanta kasoo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya la xiriira arrimaha murunka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. markale aad baad umahadsan tahay Salaad Xuseen Maxamuud Saadac ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abukato Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in bisha dambe la shaacin doono go'aanka maxkamadda ICJ. waxa uu Mahdi Guuleed uu sheegay in taariikhda markii ay ku beegan tahay 12 bisha Oktoobar 2021 oo 22 cisho ay ka harsan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ loo yaqaano ay soo saarayso xukunka dacwadii badda ee u dhaxaysay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ku baahiyay warkan la xiriira dacwadda badda. waxaana uu ku bilaabay alxamdulilah, waxaa farxad ii ah in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaago maxkamadda cadaaladda adduunka ay xukunka dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay soo saari doonto 12 Oktoobar 2021. waxaa xusid mudan in Kenya ay diiday bishii Maarso ee sanadkan in ay xaadirto fadhigii lagu dhageysan lahaa dacwadda Soomaaliya ee ICJ ee horgeysay. sidaas ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Facebookiisa uu kusoo qoray oo war kooban uu soo dhigay. waa gartay Ilyas, kiiska murunka badan dhaliyay badda Soomaaliya iyo Kenya heerar kala duwan ayuu soo maray. dowladii ka horeysay Xasan Sheikh ayaa soo bilowday. Soomaaliya xilligani maxaa rajacanka ay ka qabtaa? runtii Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed marka laga eego kiiskan baddeena Soomaaliya oo murunka ay gelisay Kenya aad bay u sugayeen. waxyaabihii markaasi taageerada awalba ay ku heshay dowladda federaalku ayay ahayd oo markii kiiskan dabagal in badan ay ku sameysay. xitaa waxaa jiray iskahorimaadyo siyaasadeed oo kiiskan ka dhashay oo xitaa xukuumadihii ka horeeyey xukuumadda hadda jirta ama dowladihii ka horeeyey lagu eedeynayay taageerayeen in Kenya ay kula xisaabtamaan arrinta dacwadda badda. balse dowladda federaalka hadda madaxweynaha dhamaaday diiradda ay saartay in baddan ay ka mir dhaliso ilaa iyo xilligan ay soo gaartay oo hadda xukunkii kaliya ama ku dhawaaqista natiijada la sugayo. waxaana moodaa Kenya in ay quusatay oo ah halka marka iyadu ay sugaysay in badda loo xukumiyo. balse rajo badan ay ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba ay ka warsugayaan in maxkamaddu ay noqoto mid markaasi cadaaladda ay ku dhaqaaqdo isla markaana Soomaaliya meeshaasi guul ay ku gaarto. runtii arrintan badda, kiiska badda waa kiis ummadda Soomaaliyeed oo dhami ay isha ay ku hayeen, maadaama halka lagu murunsan yahay oo amaan iraahdo Kenya murunka ay ka keentay ay tahay dhinaca kudaa oo dhinaca Soomaaliya. marka dadka ku takhasusay arrimaha juqraafigana waxay sheegeen in Kenya ay xagasha dhinaca marka loo eego khariirada ay qaloocisay oo sidii hore aan ahayn si kale ay ka dhigtay si marka badda halka kheyraadka haduu ku jiro shidaalka laga helay dhinaceeda uu ugu maro. shirkado kuwa shidaalka baara ayaa qaarkood waxaa la sheegay in Kenya ay markaa lacag ay ugu ballan qaadeen haddii iyagu ay guuleystaan in lacagtaas la siinayo shidaalkaasna dhinaceeda uu marayo. marka Kenya waxaan fahmi karnaa
ama warbaahintu ay dareemi kartaa in hadda Kenya ay quusatay badana Soomaaliya loo xukminayo walow la sheegayo dawlado fara badan oo hadda taageero Soomaaliya in ay isku dayeen in dawladaha Kenya iyo Soomaaliya arrintan ay ka heshiiyaan si hoos loo dhameeyo halka lagu muransan yahay marka ninba dhinaciisa uu ka qaato balse dawladda hadda waqtigeedu idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ka dhiibisay arrinkaas waxaana ay u daysay go'aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ICJ وقت إلياس مدام أشيكتي سيدات كذا واجسي دولة كينيا أي كباقصتي بشماج إن أي حاضرتو إن محكمة إن قوان كان سو لما أوران كرواميد سو دقدقي وحيل كان مدام ذلك صوماليا أو وجهيو دورشو إن خلافية بدن إجران إن حيل كان يكسو أدو runtii salaadu waxa wada sugay go'aanka maxkamadda maadaama Kenya marar badan loogu baaqay fadhiga ay ka qeybgasho xitaa Kenya markii maxkamaddu fadhigii ugu horeeyay ay sameysay waxa jira qareyno badan oo Kenya ku matali laha dhinaca dhageysiga dacwadda oo Kenya markaasi ay gebigoodba markaa ay xelalkii ay ka qaado ay ka fariisay oo xitaa kuwa kale qareyno kale ay sameysatay inkastoo ay ku guuldareysatay kolkii dambana ay u muuqatay mid marba markaasi cagaha kiiskan kala sii bixisay maadaama ay og tahay in laga guuleysanayo sida marka rajadu ay tahay Soomaaliya kiiskan way ku guuleysan doontaa sababta oo ah waxa keenayba in Kenya laftirkeeda ay soo xaadireen fadhiyo badan ayaa ah in halka lagu muransan yahay Kenya muranka ay gelisay ay tahay dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed Soomaalina ay leedahay oo xitaa aysan ku degdegi karin inkastoo dawladaha qaarkood ay Kenya ay doonayaan in ay markaa qareyno kale ay sameysato si ama xitaa racfaan ay sheegto inay qaadato laakiin taa Kenya way ka quusato waxaa la sugayaa ku dhawaaqista maxkamadda oo kaliya sida madaxda Soomaaliyeed ama ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu sheegay أدعو مع سنة إلياس وحن أرجينا دالكينا هو Soomaaliya in ay ka guuleysan doonto dowladda Kenya oo si qaawan ama si gardara ah badayna usoo fargelisay إلياس isla magaalada Muqdisho ayaan wali ku guda jirnaa wasaaradda caafimaadka go'aanadii maanta ka soo baxay la xiriiray cudurka COVID-19 wax ma noo sheegi kartaa صاد أدبر مصنفهاي وزارة عافمات كحكومة الصومالية وحاي صوصر في هبراء حكمية COVID-19 دولة الفدرال الصومالية كاسية وفرية مجتمع الصوماليات dadka safraya iyo kuwa usoo safraya Soomaaliya dhaqangelinta nidaamka caalamiga ah ee kahortaga iyo xakameynta caabuqa COVID-19 iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka si loo badbaadiyo bulshada Soomaaliyeed qoraal dheer oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay ka duuleyso xogta caafimaadka la socoshada isbedelada caabuqa COVID-19 ama COVID-19 gudaha dalka iyo dibadiisaba in ay cadeynayso in cudurka COVID uu mar saddexaad dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya weli baaritaan xaqiijin ah nooca viruska ay sameynayso isla markaana ilaa hadda isku dayo ay socdaan sidii markaa viruska loo bilaabi lahaa sidoo kale wasaaraddu waxa ay shaacisay in lagama maarmaan ay tahay in la raaco talooyinka caafimaad ee ka hortagga iyo xakameynta cudurka safmarka ee COVID-19 isla markaana la dhaqangeliyo nidaamka caalamiga ee ka hortagga iyo xakameynta caabuqa ee COVID-19 iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka si loo badbaadiyo bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo markaasi ka walacsan baalida xaaladda isu soo taraysa ee dib u soo laabashada cudurkan COVID-19 waxay soo jeedinaysaa in dalka gudihiisa si adag looga dhaqangeliyo talooyinka ay soo jeedinayso wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo kala ah in la dhimo ama la xadido isu socodka iyo kulamada marka laga reebo kuwa
aan lagama maarmi karin iyadoo markaa la hubinayo dhammaan habraacyada kahortaga COVID-19 labo si loo xadido faafidda degdega ah ee caabuqa COVID-19 ee gudaha waxa ay soo jeedinaysaa wasaaraddu in bandow xilliga habeenkii ah ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay soo rogaan si loo xadido markaasi isu socodka dadka iyo weliba isdhexgalka islamarkaana waqtiga bandowga la xadido saddex in si caadi ah ay u shaqeeyaan gaadiidka dadweynaha qaada si basaska iyo bajaajyada iyo wixii la midka iyo gaar ahaan kuwa sida gaarka loo leeyahay iyadoo la ilaalinayo lana hubinayo kala fogaanshaha dadka iyo isticmaalka afxirka ama face maska afar wasaaraddu waxay sheegtay in dadweynuhu si adag ay u dhaqangeliyaan isticmaalka afxirka iyo kala fogaanshaha marka ay joogaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada masaajidada howlalka shirarka maqaayadaha xafladaha goobaha kale ee adeegyada shan in la hakiyo kulamada waaweyn gaar ahaan isu soo baxyada kulamada fagaarayaasha ciyaaraha iyo kuwa xilliga ciidda taasoo hadda ka hor kordhisay baaliiri faafista cudurka iyo tirada dadka isu soo uu soo ritay cudurka COVID-19 caabuqiisa 6 in si kumeel gaar ah loo kala yareeyo shaqaalaha xafiisyada dowladda marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah iyadoo inta kalena ay ku shaqayn doonaan guryahooda baaliiri 7 in tallaabo dhammaan shaqaalaha dowladda aan hore in la talaalo dhammaan shaqaalaha aan hore loo talaalin ee dowladda federaalka Soomaaliya 8 in la dhimo shaqaalaha ka howlgala goobaha ganacsiga gaarka loo leeyahay qaab ku salaysan baaliiri meerto halka shaqaalaha kale ay ka shaqayn doonaan ama ku shaqaynayaan guryaha 9 in tallaabo dhammaan laga qaado dadka arrimahan ku xadgudba ee ku aadan dadka jabiya shuruucdan iyo weliba in talaalka cudurka COVID-19 la qaato in dhammaan goobaha ganacsiga bangiyada harwooyinka hoteelada xafiisyada iyo shirkadaha kale ay dooraan habraacyada kahortaga caabuqa COVID-19 sida dhaqangelinta qaadashada afxirka kala fogaanshaha ugu yaraan 1 mitir iyo joogtaynta gacmo dhaqashada islamarkaana ay hirgeliyaan agabka farxalka iyo jeermis dilaha 11 in la yareeyo tirada dadka qaybgalaya kulamada aaska iyo kuwa tacsida si loo xaqiijiyo kala fogaanshaha bulshada 12 wasaaradda caafimaadku waxay dardargelinaysaa ballaarinta goobaha baarista COVID-19 iyadoo soo kordhin doonta baaliiri agab cusub oo casri ah oo markaa lagu xaqiijinayo cudurkaasi COVID-19 waxaa jiro amar kale oo ku socda dadka dhoofaya ama soo gelaya gudaha dalka qof walba oo ka dhoofaya ama imaanaya dalka waa in uu haystaa shahaadada caddaynta baarista COVID-19 negative PCR test certificate oo leh QR code quick response code taas oo soo baxday baaliiri muddo 7 saacadood gudahooda labo qof walba oo ka dhoofaya ama imaanaya dalka waa in uu xirtaa afxir ama face mask si loo yareeyo faafista caabuqa COVID-19 dhammaan musaafiriinta kasoo safraya ama imaanaya gudaha dalka waa in ay maraan habraacyada markaa loogu talagalay ka hortaga cudurka COVID-19 14 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa jiray dad si iskood ah u galaya ama wasaaraddu ay sheegtay in dadka imaanaya 14 maalmood oo si iskood karantiin u galaya kuwaasina waxa ah dadka ka imaanaya 14 dal waa maasanta Iliyaasu dadka oo cudurkan soo ridanayo tirkoob rasmi ah ma noogu sheegi kartaa saacadii ugu dambeeyay dadka caabuqa COVID-19 oo soo ridanayo runtii
falaawo wasaaraddu mar walba waxay soo saartaa tiro oo dadka ka bogsooday, dadka uu ku dhacay, dadka laga baaray. laakiin wasaaradda caafimaadka hadda habraaca ama war-saxaafadeedka ay soo saartay waa uu ka duwan yahay kii hore. kan waxa weeyaan talooyin iyo markaa qaabka markaa lagaga hortegayo cudurka, iyadoo sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in mar walba xogta ku saabsan faafista cudurka COVID-19 ay usoo gudbin doonto bulshada Soomaaliyeed. isbitaalka Martini oo ah halka keliya caabuqan dadka lagaga daaweeyo muddooyinkii dambe zaxmad aad u fara badan ayaa ka jirtay marka loo eego dhinaca isbitaalka. dad u geeriyooday number waa jiraan, laakiin wasaaraddu ma aysan hadda si rasmi u soo xaqiijin oo 48 saac ee lasoo dhaafay ama 72 saac ee lasoo dhaafay. laakiin wasaaraddu waxay sheegtay in khatar badan iyo walwal fara badan cudurkan uu ku hayo guud ahaan Soomaaliya. kaliya ma aha Muqdisho, meelo badan ayaa jira sida Jubbaland, Puntland, Somaliland, koonfur galbeed, meelo badan. inkastoo cudurka uu yahay mid sii faafaya, haddana wasaaraddu digniin xoogan ay bixinaysaa oo marka loo eego ka hortagista cudurkan safmarka ah ee COVID-19. waa gartay Ilyasow, adigoo aada u mahadsan warbixinta aada naga siinayso wasaaradda digniinihii kasoo baxa maanta. dadka Soomaaliya ku sugan ma ku baraarugsan yihiin oo ma qaataan talaalka ka hortaga cudurka COVID-19? runtii talaalkan waxaa ku baraarugsan oo qaadanaya kaliya hadda waxaa u nugul shaqaalaha dowladda federaalka. waxaan arkayay saacadihii lasoo dhaafay shaqaalo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya oo gebigoodba talaalka qaadanaya. dadweynaha qaarkood kale oo iyana aan dhihi karno waa reer magaalka laftirkooda waa ku baraarugsan yihiin, laakiin shacabka kale talaalku waxyaabo kale ka aaminsan yihiin. inkastoo ay jirto wacyigelin wasaaradda caafimaadka ay sameynayso oo ku aadan in dadku talaalka ay qaataan dib u cudurka lagaga badbaadayo. hadda waxyaabaha amarada ay soo rogtay wasaaradda waxaa ka mid ah in shacabka dhammaantood talaalka ay qaataan si cudurka waxyeeladiisu marka ay u yaraato. laakiin dadka marka loo eego dhinaca saxmadda ama isku imaatinka suuqyada Muqdisho ama wadooyinka ama marka gaadiidka la raacayo kale ma jirto qaab markaasi dadku ay kaga taxadarayaan ama cudurkan ay kaga fogaanayaan. dadka qaar ee baraarugsan markii salaanta ay taagan tahay oo kale way isfahmayaan, gacmaha lisu haatinaya oo si dadku cudurka ay isu qaadsiinin. laakiin ummadeena kale ku dhaqan gudaha dalka gaar ahaan Muqdisho waxaa moodaa in aysan ku baraarugsaneyn oo dadkii gacmaha wax isla cuntaynaya. marka Ilyasow, adigoo aada u mahadsan waqtiga oo nahaayo laakiin dad Ilyasow, adigoo aada u mahadsan waqtiga oo nahaayo awgeed, ugu dambeyntii saacadihii ugu dambeeyo hadda waxaa baraha bulshada iyo la hadal hayay in wada hadallo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, taasoo horboodayo gudoomiyaha baarlamaanka ay iminka ka soconayaan magaalada Muqdisho. maxaa nooga sheegi kartaa arrinkaas? isla aad baad umahadsan tahay. waqtidii lasoo dhaafay waxaa jiray dadaallo la doonayay in laisugu keeno madaxweynaha mudxuleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta dalka Maxamed Xuseen Roble oo labadooda waayadii dambe aad u kala fogaaday marka loo eego dhinaca siyaasadda. cadaadiskan in ay isu yimaadaan oo heshiiyaan waxaa kow ka ah beesha caalamka gaar ahaan dowladda Mareykanka oo doonaysa iyo weliba qaramada midoobay in xaaladan sidaan lagu sii eegan karin. xitaa waxaa jiro fariimo sida la sheegay loo soo diray oo ku aadan in sida lagu xalin karo lagu xaliyo. xitaa waxaa jiray shir dowlad goboleedyadu ay u balansanaayeen madaxdooda in maalinta birita ay ku yeeshaan magaalada Garowe. shirkaasna dib ayaa u dhacay markii la ogaaday
in shirka laftirkiisu ay jirtay kala jiidasho iyo dadka qaarkood ama xubnaha madaxda dowlad goboleedyaduba marka taa waxay keentay in shirkaas dib u dhac uu ku yimaado sidoo kale waxaa cusub mudan xalay in ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ay kulmeen waxaana ay ka heshiiyeen mudmadu soo kala dhexgalay Qorqor waxa uu ka mid ahaa xubnihii waanwaanka ka dhex waday madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble waxaana xafiiska ra-iisul wasaaruhu Qorqor uu markaa si hoose ugu eedeeyay in arinta dhexdhexaadinta uu waday uu markaa dhinac uu jiray taa oo keentay in Roble uu aad uga shakiyo isla markaana la kala fogaaday aad baa u mahadsantahay Ilyas waqtiga oo nacay awgiis waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad noogu soo koobtay marxaladda ama xaaladda guud ee Soomaaliya xilligan iyo hadalhaynta wararkii ugu dambeeyay guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena diiradda aragti cusub oo si toos ah xilligan idinkaga imanayay magaalada Oslo caasimadda wadanka Norway TV-ga aragti cusub barnaamijkan oo daacada ay idin xiriirinayay waxaa soo saaray Cabdikariin Xuseen Guutaale dhanka farsamada waxaa ka hagayay farsamayaqaan Mayo Moge tan iyo intaan barnaamij ceenkaana dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.